dadka barbarka isku tuuraya waxaan leeyahay hajabina waa idin jeclahay haddaad barbar isku tuuraysaan jooradii ha idinka agdhawaado sariir ha idinka agdhawaato ama meel biyo ah oo waxa weeye webi ah oo kale waxaan leeyahay iga jabina shacabkayga Soomaaliyeed waa idin jeclahay wixii khasaaro ka yimaada barbar isku tuurka waxaan leeyahay dee ummadda Soomaaliyeed baan anigu waxaan u ahay fanaan heestan barbar waxaa sameeyey abwaan igu qaaliya mawlid xasan curjin oo aan saaxiib nahay intii aanan fanka soo galin ka hor waxaan ahaa majaajiliste markaan fanka soo galay ayaa abwaanku heestan siiyey heestuna waa qosol iyo jacayl isku jira sidaa darteed baan heesta u qaatay markii heestu ay soo baxday ee ay dunida oo dhan ku baahday wixii ka soo baxay oo feedback ka soo laabtay wuxuu ahaa dee adduunkii oo dhan barbar isku tuuraya run ahaantii aniguna aad baan uga helay ummadda Soomaaliyeed qaabkay heestan u taageereen oo iigu taageereen adduunka oo dhanna waan daawaday reactionkii ka soo laabtay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan kaloo u mahadcelinayaa BBC oo ayaguna waraysigan ila yeeshay aad iyo aad baad idinkuna mahadsantihiin